أنا واقف سلامة صباح وناكسن فيلم كان واحد دبابين لو سمي استوديو اندي فيلمز تليفون أيوة حلي وش شيء نادي جيب عنته مركز درت ذا يكون ماذا فديسبل وكوكل صنع فديس ما سنت يا مدني هاي أنا سودي لا إيشك يا ود مينا وارعدنا لو دمين ماي أريك لا القوية رانيو أو سير كذا كسخاله هديك الله ده أنا كادو منا لفتة لو روح هنا ما حقرشة كلام مركز اللي هو إدريسو aniga dad ayaa ceebeynay waxay leeyihiin ninkaas uma qalmo inuu wasiir noqdo ninkaas waxay leeyihiin waa nin saqajaana waa nin aan dadka ka fikirin dadkaas aniga maxay rabaan ii sheeg bal adaan ku weydiinayaa misweydiis warkii cadday aniga laata kuma fahmin runtii ii sheeg waxaan u baahanahay booska wasiir dowlaha inaan aniga si toos u noqdo wasiir ayaan u baahanahay taasi waa fududahay waa la socota annaga hub ayaan haysanaa ciidan ayaan leenahay xoog ayaan ku maqooninayna doorashada cid ka hor istaagi karta ma laha adiga ayaa galay laakiin siyaasadda sidaas laguma guulaysto waxaa loo baahan yahay deganaan dagaal iyo buuq sidiisa faa'iido ma keenayo waxaan u baahanahay 4 bil inaad shaqada joojisaan si aniga hawsheeda beri ay igu suurta gasho fahmaysaan hadalkayga maxaa ku hadlaysaa mudane 4 bilood haddaan shaqo joojino maxaa onaynaa annaga intii wax naga soo galayaan marka mid samee adiga 2 milyan oo lacagna sii annagana shaqada waa joojinaynaa ما نفترض أن على وريا شنكر باتل قف سيدنا والله اللي مجرو ما عبسني سدميها نعسي عنقا اياه محاك هو دعا مدني ازدجر تبل أنا كم عينين وحن كم أورن مركز ازدجي وقت هذه جوهر كان تاجنا هذه يسوق جرسي كبعدنا أن حسابتنا قدر أنا كان واحد ونكسنا يكون سمي جرني ضد نودر تواسوتي جرني واحد والباقي يكون دوني جرني حتى والله سعتها سريرت هذا كركي ذا ينقبلها تلبت تكو كين جرني جوار قف كيكو كان أنا معني سو حواي إنه يا رفيان مركز سيد أزدرت لما ملي هديكو هذاك هل ملي نسي هل كاس ملينا كقاضي ناكليه هل ملي كوكين مايو يا واحد كوكين يا وحي أنا عن كوكرتو تذكري واحد كوشيء أنا قاعد أنا ضجيت دول أنا كوكلي فائدة ما يعلقون بيروت فائدة سا اوكي واخو قرت ما سنته نبت كلي وان كاسيتك باي باي ها مدن ميدان كويديو الا يمكن waxaan garan lahayd ninkan iyo adiga hawlihiina waxa isku xidhan oo sirbata haysna waan khayna marka maxay isku keenaya sababta isku keentay maxay tahay hawshaadana muxuu ka qaban karaa waxba kama qaban karate wax ma qaban karate wareed dhigaysa baan ku leeyahay sida aniga dad fikris buskay kula ay noqon caanka war dadku way ogyiin ninkan iyo aniga wada shaqayn inay naga dhaxayso hagaag haddii hadhowda ninkan uu shaqadan joojina aniga sumcad darro iyo sharaf dhac ay noqonaysa doorashadana ku guulaysanay taa waan garanay laakiin xisaabta waxaad ku dartaa hadduu ninkanu kaaga barta baad inuu weligiiba baad kaa qaadaya calaashantani waa iska baad dadbane haddaad baada goshahay dee iska dhiib taasna uu ku jiifuligaa waa nacaba eega khayrada badan fahmaysaa orda ماشي يا ذا اسكو هنا هذا وايه مدني نكاسه وشعبه وانيجي محضر يا adiga ku tiro ayaan lacag ku qaatay aniga balse caado ayaan leeyahay caadadaas ah qofkaan ugaarsanayo fursad ayaan siiyaa
fursaddaasna waxay tahay qofkaan dilaya inuu doonayo silac inuu ku dhinto iyo inuu sahal ku dhinto. haddii aadan doonayn silac inaan kugu dilo bistooladaan qabso iskuna dil maxaad sugaysaa? dilaaga weyn howl lacagta baaqigay ku hadhay laakiin dushii iyaan ogaanin dilka mangal inuu ka dambeeyey wasiirku taa la soco saasna waxaan kor lahaa nabaday समझ गया aniga markaad aragtay heestii niikada aad haysi maxaa u joojisay meelaad adiga joogtid sidaan dadka loogu niikiyaa ma suurtagelayso haddaan adiga indhaha ku saaro cid kale aniga iima muuqanayso haddii aan niikina ama heesaayane adiga oo keliya ayaan u niikinayaa aan u heesayaa
haye waryaa yaa sidaan kuu galay war marshal baan aniga sidaa galay mangalna isagaa dilay hawshana waa caynka ah waayahay maarshaalow sharciga meesha adiga fakan laheedaan loo baahan yahay waaya marxab kafeygan maad cabtid fiiri maxaa kuugu dhacayne adigoo dhan waxaad u eg tahay qof xirxiran maxaa dhacay qalbiga maad ka dhaawacan tahayne murugo saa'id ayaa kaa muuqato alxasil monica waan dahay waxaa waajibaa inaan baxo adiga fiiri mar walba gurigan maxaad uga cararaysaa aniga maanta ama beri waxaan rabaa gurigan inaan ka taliyo anigii adiga inaan hal noqono ayaan jeclahay soo ma noqonayno monica waxaad tahay gabar waxgarada loomana baahna inaad dabaraacdo maxaa yeele aniga xaggayga jeceyl iyo wax la mid ah way ka dhammaadeen waxyaabaasna diyaar aniga hal saaxiib oo keliya ayaan qabaa waana adiga si saahidan waan kuu jeclahay adiga oo keliya ayaan ku jeclahay hay maxaad iiga cararaysaa aniga hal ayaan noqonaynaa waan islaamay marshal arrin baan doonaya inaan kaala hadlo suga ani banaanka ayaan u baxay maya monica waxbaa dhaqdhaqaaqan iska joog ayar hawshu hawl maaha ayaan khaasa marshalow ninkii mangal ahaa intaan ruuxin hawlahaagii oo dhan iyo arrimahaagii oo dhan bulis ku wareejiye halow marshal dayaal shankar bandhi ay kula hadlaya gurigii igu imo dhaqso marxaba anaa kugu imaanaa waa ku salaam waa ka qaaday fariis hore adiga mudana soo baashaa waa maxay arrinka khaaska aad igu yeertay adiga warqadda lagu xiraa dowladda way soo saartay booliskana meel walba waa uu kaa raadinayaa marka waxaan kugula talin lahaa inaad isaga tagto magaalada sheekadan anigii booliska naga dhexaysa in muddo ayay dhexdeena ku dhex wareegaysay weligood gacaniguma dhigin haddii ay dadaalaan oo gacanta ay ugu dhigaanna hal markhaati ayay haystaan halkaas markhaatina maxkamadda wuxuu iga qaadaa habeeraatee ma jirto aniga ayaa ka guulaysanaya aniga waxaan diidana waxa weeye in adigu dhib aad aragtid amba aad murugootid runtii beri haddii lagu qabtaan ba lagu xiro yaa wax ii soo dilaaya yaa dad layhaayo yaa ilma cunaayo see waay aniga guushayda oo dhan waa adiga haddii aad wax ii qabanna ma guulaysanayo fahmaysa hadalkayga anaa muhiim ii taha abba adiga marka meeshaan see tag ilaa in muddo ah gobolka la iska aad hadhowda isku soo noqday male marshal gaari ka soo tag gacmahana kor u taag haye waad xiran tahay waxaan kugu xirayaa mangal kaaliyaah iyo laba saaxiibadiis ayaa dish marka sidaas ayay ku xiran tahay ciidankaaga waxaad ku amartaa hubka inay dhigaan amar sii dhig hubka waxaa kaloo amar ku siisaa gaarigooda inay isaga laabtaan kadibna saldhigay ka yimaadeen ay dib ugu laabtaan amar ku sii midaasna dib u laabta aniga sideeda kontraad waxaan ku qaataa dadka inaan laayo oon dilo balse adiga kontraadda aan kugu dili lahaa ma soo qaadan aniguna caado waxaan u leeyahay qofkii hal mar qalad ii gala inaan cafiyo adiguna qaladkaaga waa hal mar mar labaad qalad haddii aad ii gashid inaan ku cafiyo lagama yaabo si toos waxaan kuu geynayaa xabaalaha haddana fasaxata raaj adigu wiil fiican ayaa tahay waa oga anaa ka hadara raaj
aniga si saa'ida ayaan kuu jeclahay aad ayaan kuu jeclahay raaj أنا سأكون جعلها متقنة سكرات أنكو أنكو لحظة دم علوشة من دعرتها كله runtaa miya وهذا اللوف أنا اللوف laakiin raaj aniga dhib ayaa i haysta dhibkayga ma xallin kartaane ها ديار ما هو إيشك أنا حالي ما أقول الله أنا وراه ابن حالي له raaj aniga 10 kun oo shilin ayaan u baahanahay oo guriga ijaarkiisa iskaga bixiyo تمامكم بساعة كبح حيوي شيء ويسان وكنا ya raaj miisiisane هاي صبح هوتيل كيرح hoteelka maxaan ka doonaynaana ii sheeg bal عبيتان زائدة لعبها كدبنا ولا باشالة ya waa la baashaala waryaa adiga ma weysan gabar kula qalay markaad sidaan iila hadlayso haddii aan qayli waa arki doontaa oon dadkoo dhan isugu kaa yeera iga soo gaara waa maxay ninkaas qajaanka bal fiir wuxuu igula hadlaaya adiga askarta meesha joogta laami askar magaalada gabadhi maxaa ku dhacay ii sheeg isbitaar wuxuu igu dhahay ma kasaysaane gaal kule aan soo baashaan waxaan aadaynaa hoteelka ya warya mada ku yidhi inta waxa wax saqshan ka بنت دوا والله نبصر war babban qasa dama inta sabay ku sheegaa lacagtaan u isiyaa sabay dhahay been ha sheegaa lacag ku siiyay keen lacagtan waxay cadeen u tahay maxkamadda ninkan uu qolna xabsiga ku turna dabtana waa loo dhameynaya sumad garan hawshana dhag wey gibigiisa xabsiga loo taabay aduu iska tag wariyay kaalay abahayo istaag halkan أبو معنا ma ogtahay inaad ku gaadin madowga haddaad madow ku gaadina adiga madowga بني الشيء وين نبصر أنا عوقي ربط بيتان adiga ku xog rabto miya khaym baad tahay ma iska keenaysaa sheekada mise dhaqadan ku dhufana tabigeed gashay qaabkiisa magaraysaa 7 sano من القرابي كرو أرنت يا سكله war aniga ma dablaad moodaysaa u taagay sida 2 kun oo riyo waxaan la garanayn war anigu nin sharaf laan haye ما هو شرف ولا ذا وقدرة طبعا كلام قدرة طبعا كلام ku soo darbal wax kale ana waaweynki واتنا مرة فسعبوا معنا way iska wiilaya labaatan baan kula filmaarta qayladii waa toostay iskaro way kan waa kasoo dhacay ma timid waan imi hay campbell fiiri haddii aan sidaan u shaqaysano mar dhow guri weyn oo aad u qurxan ayaan dhisanaynaa oo aan deganaano ma ogiye inaan iska warwareegno waxba ma taray hagaag waa inaynu guri dhisanaa aan dabeetana isguursanaa aan hawsha waad wari ani adiga shaqada oo kaliya ayaan heshiis ku nahay laakiin mustaqbalka heshiis ku malin midaas ka saar niyadaada ha ku riyoon waan gartay waan riyoodaa laakiin waxaad ogaataa marka qaar riyadu iska dhawoodaa moogta yaa azum pandarada daliyada habeenkii yaa naga dhaaf heestaan labalabadaya meeshaan isaga tag boolis ayaa imaanaya waxaan la iska daa inta hayno ayaan anaga qaadaya yaa qabax waan gartay dad bulsimada calasha lacagta waa lanaga qaadayaayo halkaasana xaaraamin ku noqonna waa iska tegay nabaday waryaa kaalkaa isii xaqiigno waan iska ilowshay badanahay haddaan laawo iska hoo intaadiyo nabadeena isku dayin inaa ilowdid ya hagaag sheegay waryaa dhegeyso meeshaan haddii aad rabti inaad ka shaqaysato ugu horeyn waa inaan ninka suuqdiif la dhahay aad siisaa lacag leeji ah weliba warkii naada waay war istaji aniga hadalkayga dhegeyso war aniga waxaa nin oo baar yar u furan lacag badanna ma isoo gasho suuqdeefna 10 milyan rabaa aniga 10 milyan xagee ka keena ii sheeg inteen ka keena 10 milyan ma soo dhaca ma soo baada ii sheeg meeshaad ka keenaysa anaa hadda kuu sheegaya guriidka waryaa isbitoore aniga aqoon mii leedahay markaad bistoolad degtiga saarays adiga maaha weliba walaalkaa kale xaaraamiga xataa aniga waan idin aqaanaa laakiin idinka ayaan aniga aqoon ii lahayn waxaan ku siinayaa hal fursad oo keliya maxaa yeele dabeecaddeeda waxay tahay qofka markii aan gacanta ku dhigo inaan fursad siiyo ee uu ku waantoobo laakiin haddii uu ka faa'iidaysan waayo adiga iyo walaalkaa intaan gorgorada idin geliyo oo jijimo idin xiro ayaad laamiga ku niikinaysaan ma fahamta hadalkayga ka faa'iidayso fursaddan mar dambe kusoo mari mayso هلو ها وانيقا دامن دروي مانت ايام بامبا يمت وحول بس اوكي مان
yah ninkii bawnaha maanta ayuu xabsi ka soo baxsaday meel ayaa la geeyey waa u baashaalayaa wax ka hadlaysan ma laha aniga ayaa u jooga arrintaas soo maha anaa meel saaraya taas iska dhaafade waaya waryahoy wax daran aagiin haddii tuugadeeda wax yar ay ka suubiyaan nin khatar ma isku malaysa oo magac leh oo gaangista leh fadhiiso keenta waa kada isiyaadna hoy horta koo ciidamadaad ma arkin oo shati dhan ma laha mideeda kale walaalkaa disi imaan lahay aan aslaxaajo lahay waqtigaa maba dhima laheen waa joogi lahe ruux cajaabna waa isla cuni laheeden laakiin maxaa suubiya waa iswaali ana madaxan ka jebiyey waryaa aniga horta marka hore maba kuu soo raasay in adiga kula kulmo waxaan u imid dilkii aa walaalkii aa u geysatay ayaan rabaa anigana inaan ka aarsado maanta waa ku dilaya adiga miga badbaadaysad maanta waryaa ha taagan gacantaada ali yaa u naqdib warkaas ka baxee baan mir cunaysaa horta mid ayaan kuu sheegayaa aniga sideedaba baan ma cuno balse maanta wax walba igu qaadato ma ka siisaa waan cunayaa waxaana ku cunayaa dhiiggaada ku dhammaynayaa maanta هاي أنا ما يدري لسه صحور عبد ما حسوا سوكل صحور أنا ما يدري سوكل ما حسوا عبد عليه كلام ما يدري لسه أنا بقول له وقت إيه ترى بيكون على ماركينو داوديس نحبط له نفط اللي كان نيو هذه ما إنكارن توك يا أبي وعلى دلي وعلى عناه وعلى حوقي واحد دافو اسمه له ضد والله يسانكر ضد من نوله ازدجي دقننا اللو بايعي ورأني مركي أنفل سمينيو إد أغاني سملان طبعا لماذا ذكر الأمة سمي ست كنا يحكوا فليا ورأني وضع هذا لان سمينا مركور مركي وحوض هذا الكواينا بشكالي سام بلابا ورهذا في أرنتنا تسميسها دي بوليسك أغادو وقف مش جوغ الروفيامو dhib ayaa ku imaanay khatar ayaad galaysaa waa ku sidaniyo adikaale sidaadaba xashiishka sigaarka ka yareey ha ka badinin xaalka haddii kale waa sii xumaanaya maskax malid see waade walaal ninkan dilka ninkaas u geystaa didaacad ka tahay maxaan igu sheegi waay ana guriga inta u tago aan ku dhex dili lahay ninkaas waryaa mugti socdaag mala shukaan soo ka tag meesha orod dhexdeena ka baxda socod dhexdeena ka waay idageyso booliska maalmahan waa kacsan yahay arrimahan hadday ogaadaan adiga khatar ayaad gelaysaa annagana baxrana gelinay markaas marka isdeji istartiibi maskax degan isticmaal kaniinigaana iska badinin walaal soo hadlaysa adiga aniga tubaaka la'aan kaliin la'aan ma socon karo maskaxdeydana waa ogtahay inay gubatay aniga wax iga quseeya male war kastane waxaad soo xasuustaa wixii maskaxdeyda aan ka maal qofka arkaba dilaa tan naga xaree balaade tan naga xaree bahalkana ha hambanin ha sacbaysan hal cun saasaa la rabaa isdijaa see waa kan yaaq adka ma waxaad dhalatay habartaa cali shirka kasoo bixis gacanna midi gacanna basoro adoo wata maa dhalatay habarta maa ka bilowda hay sidee waxu jiraan maxaa soo kordhay iigaa kuu sheegaayo hooyo waxay ka murugsan tahay iishaa xaggeeda le waaye waxay rabtaa iishaa inay waddo isbitaalka geyso ee ku soo qanciso inuusan aabbaheed dhaawac ahayn oy u sheegto inuu dhintay waa run wiilkaygii waan ogahay wiilkaygii inuu dhintay balse aniga waxaa ila qurux badnaatay gabadhayda inaan runta u sheego sidaysan hadhowda uqdad iga qaadin aysan isdhihin been ayay kuu sheegaysaa waalidkaa been ayuu kuu sheegaa ma samayn kartaan maxaa dhakhtarku waa u nooga diga taas midda kale walaalkay inuu dhintay looma sheegi karo gabadhiisa waxaa laga yaabaa shoogas ayadoo hadda xanuunsan inay xamil weyso ayada xataa dhimato hadda xaggee joogtaa
qolka ayay ku jirtaa laakiin runta in loo sheego ayaa iska wanaagsan walaal ka bax adiga anigaa la soo hadlay hadda aniga xaaladdeeda soo fiirnaa idinka waxba u sheegin orod raashin u geey adiga bax gabadheeda gabadheeda iishaa way xanaaqsan tahay wejigeeda duqow egyaa duq marka ayay warkaaga maqlayso hooyo hadalkaaga ma yeelayso waxaasoo dhan waan ka warqabaa laakiin adeeraa kuu joogo wax walba adeerkaa kuu qabanay ii sheeg maxaa lagaa biya anaa kuu joogo anaa ballankaa qaada inaan kuu qabto waxaad jeceshaa waxaan rabaa aabbe inaan la kulmo aabbe soo maaha intaas le soo maaha anigaa ballankaa qaadayo oo kula kulansiinaya aabbaha maxaa kalaad u baahan tahay ii sheeg ballan waay taas ya ha raashinkana waa kan waa lagu soo diyaariyey weliba mushaariyaal ya inaad dagaalna maarta ballantii waan oofinaya hoo adigana wax cun si ballanta aan sahal ugu oofiyo haye hoo gabadheyda bravo waa ducaysantaha adiga ها waxba okay weeyaa ha ka cabsan baan ku yiri madane adiga waxa rabtaa masun badan inaad korsatid say ku dhacdo taas warka ma fahmin ii balbalaar waxa loo baahan yahay eyga markuu mudaniisa howlo dirsado inuu sida loo diro u qabto hadduu amarka qabo waayo taas waxay tahay inuu caasi yahay oo doonayana inuu mudaniisa qaniino taasaan ku sheegaa waa gartay nin weyn camal aad u hadlaysaa waan ogahay ay far badan aan ugu hareeraysan waxaana loo baahan yahay dareenka inuu shaqeeyo ma fahmaysaa halkii yaad ka hadlaysaa waxaan ka hadlayaa أنا عمزادي كذاب العزي محاتي وريا شو انت توق ما تري وبقيانا اقول العذاب وريا نكاس متقانا وانين اني خاصيه داعت ايويه وريا وحو كلين اسكو دغدغا ما اركنو waxaan sameeyay oo sameeyaa ana xabad leeso wadacta asa isku dhigaan kuuri naftiisa ma ganacayaan kuuri aan lees bay ganacabaan marta borkaas ka malasa jirbax هذيك وما حسبتورة دي كنتين اسبتورة نوكتين إنه يه اسبتورة قطرة بلايا كدعدني كان وانا قطرة وانا اوغاي انو dad badan dilay laakiin adiga maanta ku feestay kow kasi dil asiga naftigiis maya war hadda dalkiisu u baantiin aniga igu fasaxa dib dambe u noolaan maayo waan rawaxinayaa maya ninkan waxaan rabaa xisaabta naga dhaxaysay in aan ka marsado horta hore ka bacdina maskaxdiisa aan sida baloniga kale ugu dheedheelo nin tiib shaqaba hadduu gacanta hub ku haysto waa laga cabsanayaa ee raganimadaada hadday tahay mid dhaba kaligaa iskeen sida nin rag iska keenay nin eedis qabo la tabargooya
suuraj maxaa ku daara maanta qamri cabo sidaaye infaktar maa socontay hoy maxaa ku daari bileey maa soo gashi walaalood ogtahay aniga isbitooraha in dagaal ba'an uun dhex yaalay laakiin isbitoorahaas meel waaba saaray qof saddexaada dhexdeena soo galo qofkaas la rabaa in laga saaro qabiilkiisii awaay ninkaas marshal la dhahaa yaa marshal waa in aan meel saaraa oon kow aan ka siiyaa ninkaas ma daynaya aniga kabacdi waxaa sirma isku murjiyey marshal anaa kaa marshiyaha waxaa ka cabsanin haye sidee tahay walaal waan fiicanahay aniga gabadha sidee kuu tahayna way ii roontaa hadeertaan gabar lee waaye haye markasta ayeeyo iyo hooyo waxay idii jireen aabba isbitaalkuu jiraa anina waxaan dhahay mar la igeeyno aabbay inaan arkaa rabaa iikana ma i wareerin laakiin aabbo ani waan kuu ducayn jiray haddana ducadeeda aqbal ee noqoteno saa kuugu ducaynaa markasta waan oga aabbo aniga aabbo waan ku jeclaa gabadhayda naso dhakhtarka inaad nasato ayuu kuu soo qoraya maxaa kugu dhacay waayo waan baxaa aabbo jaaw baaba jaaw ayeeyo jaa hooyo wiilkayga aad ayuu kuugu ekaa muddo 1 sano laga joogana ayuu shil ku dhintay asaga shilkaas markii uu galay wiilkayga gabadhayda yarna hadal markaas ayaa ugu dambaysay maxaa yeelay markuu shilka galaya gabadhayda indhaheeda ayay ku arkaysay way u jeeday marka adiga dartaa ayay maanta codkeeda ugu soo noqday gabadheeda ma aqaan abaalkaaga waxaan ku gudno maya abaalmarin inaa siisan looma baahno nabaday waa sii tegaya waa wiilkayga labaad wiilkan hooyo wiilkanaad arkaysid maanta aniga badbaadada haddii uusan ka qayb qaadan lahayn shifraaji ciidankii saacaddan waxay ku guulaysan lahayn inay dilaan haddiiba ay sidaas tahay masiibo igu soo socotay ayuu hor istaagay wiilkan weliba maanta arrin kaloo farxad leh ayaa guriga ka dhacday iishaa afkeeda hadalka wuu ka soo fuqay yaa iishaa ma hadasho hooyo ma dhici kartaas haa wiilkayga way hadashay walaal abaal weyn ayaad noo gashay adiga marshaal walaal marshaal abaalkaad noo gashay ma aqaano xilligan gudayno maya qof ixsaan u sameeya ma jirto qof markuu wax qabanayo waa waajib ixsaanka wuxuu ka yimaadaa xagga sare xagga rabbiga nabadii hadda waxaa ka cabsantay mishan bir ka bacdi waa ficnahaysaa subag dhilqa markinoo le ala siiyo yaa jaabay doctore aad iyo aad waxaan ugu farxay in aisha
ee hadalka dib u bilowdood maqashaan malayna adiga ها وحول بقى مقلع برتانا تليفون يوشك متى كلام حن كل شيء يستعمل أركينه نكان أبدا وملوس ناس أبين أهل يا لوجيسين الله دكتور waxa lagu qasbay ninkaas inuu kamid noqdo dadka gurigeena degan soo dictor hal kala ma lahayn saas leedahayn hay mahadsan dictor mahadsan aad ma hay markala kulminaya insha Allah ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है मांगने वाले मांग रहे हैं पाने वाला कहता है जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है खड़ा हूँ मेरा नंबर जिस दिन आएगा देखना यारो तुम घर मेरा नोटों से भर जाएगा सबसे पहले एक सोने का ऊंचा महल बनाऊंगा माइकल जैक्सन मैडोना को जब चाहूँ नचवाऊंगा अमेरिका से राष्ट्रपति खुद हाथ मिलाने आएगा हाथ मिलाने से पहले वो थोड़ा सा घबराएगा मैं बोलूंगा हाथ मिला ले मैं बोलूंगा हाथ मिला ले और टेंशन काय को लेता है जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है और छप्पर फाड़ के देता है भाई देता है छप्पर फाड़ के देता है शादी करके हनीमून पे चांद पे मैं भी जाऊंगा 1 साल के बाद लौट के चांद से वापस आऊंगा चांद का टुकड़ा गोद में होगा डैडी डैडी बोलेगा हीरे मोती जड़े खिलौने खेल खेल में तोड़ेगा अपने हिंदुस्तान से फिर मैं दूर गरीबी कर दूंगा जो भी खाली जेब मिलेगी मैं नोटों से भर दूंगा वो मेरी भी सुनेगा एक दिन वो मेरी भी सुनेगा एक दिन मेरा दिल भी कहता है जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है जब देता है ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है अरे छप्पर फाड़ के देता है भाई देता है छप्पर फाड़ के देता है अरे छप्पर फाड़ के देता है अरे छप्पर फाड़ के देता है walaal aniga diyaar waan u ahay gabadhaas wax walba inaanu qabto balse diyaar uma ihi reerkiina inaan dhex dego oo reerkiina aan ka mid noqdo mintaas ma yeeli karo ma samayn karo walaal dhibka jira isku day inaad fahamto marka hore xaaladda isha hadda ayayba xun tahay hadday ogaato adiga inaadan aabbaydahayn waxaa laga yaabaa inay marxaladdii hore mid ka xun ay sii gasho marka walaal asxaan weyn noogu samee wax dhibaata ma kala kulmays gurigeen
20 ilaa 25 maalmood aniga madaxayga u sameey intaasoo kaliya kadib anaga isku dayna xal kale inaan u raadsano gabadha laakiin walaal 20 maalmood oo kaliya aniga igu sharaf waa ku baryaa okay mahadsanid aad ayaad u mahadsan tahay halo hay sunu korma soo laabata adiga maanta ayaan soo laabtay hay ii waran bal dalxiiska siduu ahaa iga warnaa wuu fiicnaa waan soo wareegay weliba waxaan heloo kale shaqo footo modeer ah barawna waa layga qaaday okay ayaan noqday aadan ugu faraxsanaa taas haye haye laakiin inaa ila joogta ayaa fiicneed haa way fiicnaan leed laakiin baliis haddaan nahay xil badanaad dusha naga saar marka fursad aan ku dalxiisna ma ku raaxaysana yaaqi adiga qof dhalinyaro ayaa tahay waqtiga aad raaxaylsan lahayd oo jacaylkaada ka fakiri lahayd booliis iyo tuuga inaad soo aroorisid iyo wax yaaqi dhib leelay ku jirtaa noloshaada idil maxaa dhacayne dhib ma laha waan ka baxaynaa taas xil haddii aan dusha saaranay fiir calaa ayi xaal aniga waxaan rabaa 10 daqiiqo gudaheed inaad iigu imaatid aniga taas macquul ma noqonayso mashquul ayaan ahay haddii aad macquul ka dhigi weyso aniga ayaa macquul ka dhigaya waxaan kuugu imaanaya saldhigga gudihiisa maya hadda waxaan aadayaa gaashaanlaha xafiiskiisa shir muhiim ayaan meesha gaashaanlaha naftarkiisa agtiisa ayaan kuugu imaanaya weliba bahal shumisa oo laga yaabo ayaan kuugu dhajinaya oo aadan filaynin adiga haddaad ii imaan weysid aniga ma fahmi yeelin haa waan imaanaa hay gacalka sideed ku timid ma imaanayo daysabe hadalladaada waxaan ka qiyaasay xiisaad ii qabtid inay tahay mid aad u weyn marka si degdeg ayaan kuugu imid si aan kuu dareensiiyo anigana xiise aan kuu qabo hay sonu hi oh my god aad iyo aad ayaad u nuuraysaa caawa adiga waxaad isku dayi rabtaa miyaa inaad beenbeen qalbigayga u xadda aniga maya sideen been kuugu sheegaya waan ku jeclahay waan ogahay midda kale beledkan halka isbitaal laga cabsado waa aniga marka anigoo laga cabsado adiga inaan kaasii cabsado moogta horta waa naxaya markaan ku arka adiga amarka waa qaadana waa runtaa maxaa yeele qofka markuu qof jecel yahay waa inuu ka naxaa xoogaa qalbigiisa cabsi ayaa gelayso midaas been kuma aadan sheegin beenta maaha laakiin mid ayaa jirta adiga maxaad iigu imaan weysay 10 beri oon goobaa jooga hal maalin xataa inaad iiga imaato midaas sooma gudbooneen laakiin ii sheeg way gudbooneed laakiin maxaa kugu dhacmay dhays miya daafaa hel daafka beledka socda maqlin miya 3 maalmood daafan la jiifo laakiin hadda wixii ka dambeeya hadda maxaa program haysaa ii sheegba isla cawadan waa seexanaya cawada hee maxaa noo haysaa adiga ها عاون إسراعينا بارك وين أيان كسوع عشيننا أنا جودة جرأة أنا ديبي لكن يا هذا بقى ديب ولا تاس أوكي نود إيشا سكول كوات كده هذا صوص عمرك أنا واحد سكول أرايا ملي إيشي دي مركوري أبي إيكن كتب أيان سكول كأرايا إيشا هاي أبو أبو أنت ديجا أدي أنا إيشك بلا ديجا gabadheeda xoogaa shaqa ayaan ku mashquulsanaa aniga أبا نيجا بلا نيجا قد مرتم بينا يتجين أنا يلي جوجي شتنا waxaan kaa ballan qaadayaa mar dambe inaan kaa fogaanin run miya ha maya ma adiga see u hadlaysa adiga haddeer ma loo baahna ciidan aniga igu waardiyeeyo mideeda kale isbitaal sudeesh ma arkinoo ay badbaadiyay hadda kor suqbir walaalkiisana asagaa garaacay mar dhowne way u dhammaanaysaa okay mar kale anaga kusoo wacayo waayahay meelaan raba inaan aada maanta mar kale anaga kusoo wacayo okay bye khayran isku ognaani adiga كالي صعيو وحرت ماسك سميها ريا كالي نكب هوتيلك اسكالي يا ديل كوير محد ليس اي شيء
aniga kuma dhino isxasile waxba ha dilin dhiba geysan ku dhino aniga yaa wariya dabbaa loo ahayd laakiin walaal waad ogtahay ninkaas dartiisa in isbitoora uu garaace inaan dila ma ahane natiijo kale ma hayn waxaad kala ogaataa baadiina uu diday in baada didana awaysi ku soo rooxadan anaga ma naga baqay hadda laakiin ninkan dilno dadweyne dhan way naga cabsanayaan marka maxaan kala sameeyay wariyaa ma ogtihiin maalmahan boolisku inuuba tugada raadsanayo annaga banala gaadgada misana ma noo sii wacaysaan ma ogtihiin inaan dhibna gaaraya dhowda waryaada hadalkayga maqlaysiin horta mise waa maqlinahaa adqeelile maa ku jiraysaa hadda subax dile maxaa ka macnale cimrigiisa dheerahaaye dhaaf dildilay maxaa isku wareeraysaa waraayashun dooli adiga dhexdeena soo gelaya adiga bastoolad iyo dilo iyo waxaan een maba garanaysid baade ninkan adiga ayaa waddada ka luminaya adiga ayuu kugu daysanayaa ha ad walaalkiis ma tihin miye walaalkiis qoor oo kama matiin adaka nini ku daldalay kabacdaa dhoti xartaa ma suuq ina siyaanya usugado yaanyaa gado laakiin adiga waxaad u qalqaalinaysaa in madaxiisa maaragta lagu qaras baxo la bajiyo horeya digniinta ugu dambaysay ayaan ku siinayaa mar dambe hadda tallaabo noocana qaato waxaad ku sheegayaa inaan singapore hotel ku yaalla xilkiisan kugu wareejin adan waa iskaa fogeynaaba ha u noqon ya akhli hoy kaale gooni maxaa isku bixiyoosaa maxaa isku wareeraysaa wariyaa anaa walaalkaaga wixii dili karta dil anaa inta kuu dhan feeraheem ujeedido waxa ka cabsanin ninkan waa waalan yahay walaalkaa kaaga warkiis ka bax ninkan tala mahaayo unukun isna dilis raba aakhirkiisu isleena dilaa laakiin walaal yeeshuun waa ogtahay ninka aan dilay aniga khalad kuma lahayn maxaa yeelay anaga ayuu nagu soo xadgudbay dartiisana booliska ayay garaaceen marka aniga inaan dilo khalad maan ku lahay ad cunug yaraataa si khalad ku galay wariyaa beledkan waa ogtahay dhaqanaa lagu joogaa maskaxaa la rabaa haddii dad la dildilina unukaan la dilaa hawdeen la kicihaa beledkaana waa ogtahay nin inaa la dilo lee horumar lagu gaarahay makasti haye saxo waa runtaa walaal isbitoor raaban warkan soo gaaray waa maxay oo sheegay nin boliis oo falsa inuu dadka muf ka dhigay xaafadda degan oo idil ma jirto hadalkaas ha aniga warbixintaas way soo gaadhay waanan hayaa waynu kula howlgalaynaa okay waxaad samaynaysaa dadka waxaad daba dhigaysaa dabagalka c i d da hana la ogaada ciidankaas wuxuu ka tirsan yahay iyo ninkaas wuxuu yahay intaba adigaan ku xilsaara isbitoor baaban okay taliye warsan عشق مبرول يخوي أبابا قودن فير بلان بركاس مكو دعاني يا قيو كاسو ماها كاسو الشعبي واحد كل هذول باكو فلان مدرسة انت دو تكتيد وصو حير مدرسة ما علي انه وصو مدرسة شاب كتاب ساس لي واينا وريا انا ما تغني محنا ودسا gacalka miska xanaaqaysa shalay ayaan ballanay waan kuu gooyay markaas taas darteed ayaad u xanaaqsantahay laakiin haddaan free life ahayno waxaa doonto maanta waa maalin wanaagsan ugaartaan oo baraasana bay imaanaysa soomaa fiiri maxaad fikiraysaane ma fikirin laakiin jardiinkaas nagey waxaan rabta sheekaysanay soo bax okay kabacdin distotek aadina ayaqa iga leexo maxaa lagu taaban karaa هذا في عنا يقول هذا لأنه يقصد جيرنا سما هل مركالنا شو مسنو هل مري شو يا ما حد هذا الشو ما كنت بيه هذا لا كل عيالنا إنه لعقت جيب كذا كنت الصبح هذيك الواقعين لا تذكرن أي سوق وعايا هي فيري مشان لغة أنا تقانا مليها أنا بشيء كذا إن كنت ما معلنا أنا موجودني هذيك سوق بود فركتين هذا فور أيوة فور ورك هذا مرة به بومسي فركتين هذا وريا ذيك الوقت وحيرة كان فرانتي أنا كدر 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 صباح أدور مكوشة وضاس قاصع أنت ترتيبة لغصو الله عسكري وقت في عنايماتي من كان ويدع هي ولقي وقت اللي بهي وبهي ما داي هذي ما ذيك ما كان وحي يرى ملك وحي داي ملك جوتشي قاريقة waxa ugu daran adduunka inaan la kufsado oo sharafteeda lagu ciyaaro taas ugu daran sharafta maadaama laga baastooladi ninka waxa weey xabsigeena ku tuuranay balse walaalo macnaha aniga ma uu kufsanin laakiin hantidayda oo dhan ayuu kufsaday ninkan faraanti ka tiin haalay waxay u qarmuunay oo aan laga qarmuunsanayn iska bixi waan ku iska warka noo qaraabe faraantiga adiga qaado ka tinkan ana qaadanayo meeshana ku heshiinayna ayadana iska baxdana war naga waan ku dhis waxay waa laga waxaan nin askari oo xoog leh oo gabgiisa gulbada ma garanaysaa la luusna ma qaatayaan saddex xisto ku qaadan
ahey waryahay soo budbud baan ku yidhi xisaabta haddii kale jeelkaan ku geynay jeelka ood ku uraysa weliba imika waad garaystay ood ceraysan doontaa laaluush ma qaataa dale miilaheen adiga maxaa kuu dhacay isbedeshay laaluush ma qaataa bitiribe maya anigu ma doonayo laakiin gacanta yaraa odhanayso mar gacanta cuntana dee waxna yar bahna xoogaa lacaga ma garanaysa iska keen lacagta sorib lacag sorib wax kale ma saacadda lafteeda furhaa fur saacadda lafteeda war haddaan dhar kaala bixin baad nasiib leedahay baan ku idhi saacadda iska fur waqtigan ku macalligiska haddaan kaala bixin maaligeliya na dhaafi hadda waaye soo kamaan gaarsiin adiga mari halkaan golnay sonu hooyo arrinteena waan kala hadlay waxaan rajaynayaa inay ku yeesho oon labadayna isguursan karno mar dhow saasaan rajaynayaa ya oo kaale haddii ay hooyadaa diido ima guursanaysid miyaa sidaas ayay noogu dhammaatay labadeenna annaga waxaan nahay ubadayna waalidkeen ayaa noo taliya waalidku wuxuusan raalli ka hayna waa inkaarun bay keenaan maayo wanaag kama yimaado fiir aniga haddii ay adduun weynaho idil idhahaan iska dhaaf kuma dhaafi karo waayo si dhaba ayaan kuu jeclay aniga cidaan kugu doorsanayna ma jirto adiga ma iska oynaysaa aniga waan kugu ciyaaraya oo keliya waan ku jeclahay aadaan ku jeclahay weliba cidaan kugu doorsanayo male hooyo howshahan cab mahadsanid gabadheeda haye solo ma wanaagsana waa la fiican yahay walaal soo fariiso anigana waan fiicnahay hooyo ishaa iga warama ishaa marshaal ayaa iskoolka u wada saakay hooyo mid ayaan kaa codsanayaa marshal intuu martida noo waxaan rabaa waxba inuusan u baahan gurigan wax walba wixii loo samayn kara in loo qabto si santan aniga in wax loo qabto oo kaliya ayaad joogtaa ma ogtahay maashaal markuu halkan yimid gurigayga farxadiisoo idil ayaa soo noqotay weliba gabadhaydii ayaa codka u soo laabtay hooyo aniga
waxaan jeclahay marshal noloshiisa inta ka dhiman inuu annaga halkan nagula noolaado si annagana farxad aan ugu noolaano marka waxba yuusan tabin intuu halkan joogo oo runtaa wiilkay dadka dhanna waxaan jeclahay in farxaddiisa ay saamayso kulligeen waa fahamteen oo malinaa hay dimash waryaa dhegadiish maxaa ninkan ka fiirinaysaa raashinkan asiga ayaa lahay raashinkaaga anagaa ku hayn waana fiir nin dambiile markino oo xabsiga bambay ka soo baxsaday feelkiisa waay haddana waxaa lagu shakisan yahay magaalada inuu joogo taliye waan ku salaamay wiilkayga waad murugsantahay maxaa kugu dhaca maya hooyo wax dhibaata ma jiraan oon fiicanahay hee wiilkayga arrin ayaan rabaa inaan kuu sheego wax maxay tahay ii sheeg waqtigu wuu isbedela wiilkayga dhaqankii iyo caadadii horena laguma dhaqmo hadda marka wiilkayga waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo hooyo waxaa idila socodsiineed ii sheeg aniga weli hadalkaaga ma fahmin ifahamsii bal maashaal iyo kiran arrinta arooskooda inaan kaala hadla ayaan rabaa wiilkayga hooyo weli lama gaarin xilligii aan waxyaabaha noocaas ka fikir lahayn midda kale marshaal wuxuu yahay adiga ma ogid weli looma baahno wiilkayga wuxuu yahay inaad ii sheegto maxaa yeelay waa wiil fiican oo sharaf leh gabadheennana sidii cunug uu dhalay oo kale ayuu u jecel yahay wiilkayga karan mar labaad haddii dharkii arooska loo xiro qofka koowaad oo farxaaya waa aniga waan ogaa hooyo taas fursad wanaagsan aan ku raadin anigaa ka dhaadhexinaya adiga inaad hadasho loomaba baahnaba fikradaada ayaan fiirinaya siday kula tahayna maxaa kugu dhaca gacali waad murugsan tahay yaa ii sheeg haa waan murugsanahay weliba murug aad u culus oo xun ii sheeg waxaa laga yaabaa murugtaas inaan wax kaala qabto gacali
sideedaba runtu aad ayay u kulushahay naxdinna way leedahay weliba marxaladan haysta haddii aan kuu sheego sunuu adigan jecelkayga xataa waxaa laga yaabaa inaadan i aaminin haddii aan problem kuu sheego marshal ma taqaanaa ninka nala deganaa waxaan ogaaday inuu dilaayaha weliba baxsad ah yaa dilaa'a haa faylkiis ayaa haddana soo gaaray xabsi ayuu ka soo baxsaday maxaad ku fakartay marka inaan xiro ayaan ku fikiray marka hore laakiin waxaan ogaaday marka dambe inaadan xiri karin inkastuu dilaayaha idinkana badbaadiye ayuu idin yahay soo ma ogid gurigiina marka uu yimidna inshaa way hadashay soo ma ogid tani xakamaynayso ilaa hadda aan tilaabada ka qaadi lahay soo taas ma aha waajibaadkaygana waxaad iska ilowdaa waajibaabka waxaad xasuusnaataa bini'aadanimada midda kaleeto maskaxdaada waa inaad ka saartaa ninkaas in uu dembiile yahay oo ay ku hor timid waraaq maanshaal dembigiisa caddaynayso waad iga saxantaa soono maxaa dhacay fikash wejigaaga waxaan ka arkaa su'aalo badan oo aad doonaysid aniga inaad i weydiisid mise waxaad ogaatay wejigayga dhabtaha ii kala caddeeban sidee wax u jiraa soo sax maa hadalkayga haa marshal hadalkaagu waa sax aniga waxaan kaloo ogaaday inaad tahay dilaa caalami ah oo laga dambeeyo marka wax lagaga qasadaa nin gacan ku dhigi lahaa nin askariya gurigiisa inuu ku soo dhuunto isnaan uga aamuso fikraddaadu way khaldan tahay maxaa yeelay aniga cabsi booliska iyo sharcigaan ka qabo gurigaaga uma soo dhuuman gurigan waxaan u imid gabadha aad adeer ku tahay ayaa waxay la noqotay gabadheedoo kale adiga markaad iga codsatayna waxaan ogolaaday gurigan inaan joogo balse hadda maadaama aad ogaatay wejigayga dhabta gurigan inaan sii joogo ilama habboona marka go'aan waxaan gaaray isla waqtigan inaan gurigan isaga tago waan baxayaa adiga askariyaa tahay haddii aad doonaysid waajibkaaga inaad gudatidna waxba ha shakinin suurad xabadda markan adigana qalad ii fahamtay saaxiib adiga haddii aad tahay nin gacan ku dhigi lahaa baxsada aniga marshalkaan aqaana maba aha mid gacan ku dhigi lahaa ee waa kan reerkayga badbaadiyey marka ninka reerkayga badbaadiyey aniga agtayda sharaf ay soo dhowaan ayuu ka mudan yahay saas darteed lagama yaabo aniga inaan gacanta booliska ku geliyo gurigayga sharaftiisa sumcaddiisa iyo farxaddiisa ayaa dhistay haddii aan tallaabo qaldan kuu qaadana waxay noqonaysaa anigoo gurigayga sharaftiisa iyo sumcaddiisa iyo karaamadiisa intaba meel uga dhacay mana laga yaabo taas inaan sameeyo hadday sidaas tahay anna waxaan ku ballan qaadayaa waddadii aan horey ugu socon jiray inaan dib dambe ugu soconayn sharafkii sumcadda aad booliska leedahayna aanan kaa dhaawacayn waa ballan aan aniga kaa qaaday wiilkayga haddii ay midaas dhici lahayd gabadheeda aabbaheed ayay heli lahayd karanna farxaddeeda way soo laaban lahayd wiilkayga hadalkaaga xumaanuma arka aniga maxaa yeelay kumana qasbaayo wiilkayga adigoo keligaa ah ka soo fakir hadalkayga
maskaxdaada oo degan ka soo fakir wiilkayga haddii aad guurkan ogolaatid waxay la noqonaysaa inuu wiilkayga dib iigu soo laabtay aniga wiilkaygiio waryahoy labada qof laga shakisan yahay sabnaa iyo qoodhanaa la dhahaa idinka koraad ka waardiinaysa aniga waxaan rabaa dadkaas inaan gacanta ku dhigo weliba ayaga hoosha ku jira markanu aan rabaa inaan gacanta ku dhigo ma fahanteen tali fiiri meesha cidlada maxaa noo keentaa bahay saad u hadlaysaa amoore jecel ayaan ku samaynaynaa meeshan cidlada fiiri laakiin jecel haddii la samaynayo hoteelaa la tagaa lagu sheekaystaa mise guri cidle ah hotel maxaad ku falaysaa beerahan quruxda badan si uma jeedid gacaliye jeebkaaga meeqa lacag ayaa ku jirta waryaa soo bixi jeebkaaga inta lacag ku jirta ayaan ku leeyahay war heedhe aniga lacag ma qaato kaar keliyaan qaataa kaarka ma ku siiyaa ma qaadanaysa adiga ii sheeg kaaraan ku haya bas waryaa hooy aniga beenaha isku dayaya inaad samaysa haddii kale waan qaylinaya dadkoo dhan ayaan ku wacaya soo bixi lacagta dadka jooga miya kaaliya ninkan wuu ihoogi rabaa aawa dadka isbitaar ninkan wuu ihoogi rabaa sharabtayda ayuu rabin inuu ku cayaaro wuu ihoogi raba ka waran aamus baan kudhi waxay diisa war meel anigu joogo in laguma kufsan kuli kaale badan kaale waryaa moogtahay ninka gabadha kufsadaa wuxuu yahay xadhigiisu waa 7 sano oo xadhiga marka intaynaan xadhigaa gelin aanan ku gelin adiga laftigaaga haade jeebkaaga magaraysa ha ku futan qoolnaa ka sare iyo ka hoose labaduba haddii kale kadanka war iska dhiba ya waryaa dable kaaliya labadan qofta lee xero fuuga waa labadan dable halee xero saldhigaa ya war kaali waxaan ku weydiinaya war aniga isbatoorahay fiiri labadan iyo xer waryaa wameed naga dhamaysa war jooji barorta gaariga mar meel walba lagu heshiiyay inuu iska heshiin magarasa heshiiska waanu kulahay aamus waryaa waya xabsigii geli akul gaadiye namare maanta waxa uma darnayn waxaan rabay inaan kuu sheego hooyo hadalka ay ku dhahday looma baahna adiga inaad isku murjisid maxaa yeele hooyo aniga way ii jeceshahay sida gabadheedoo kale ayay ii jeceshahay mar walbeetana way iga fikirtaa marka nolosha aniga dood ii dacwo kama qabo maxaa yeele noloshayda inta ka dhiman gabadheyda farxaddeeda ayaan ku dhammaysanayaa aniga laakiinse mararka qaar waxaa jirayso adigoo raba inaad neefsatid haddana aadan neefsan karin maxaa yeelay meesha aad ka aariya qaadan lahayd ayaa derbi lagaaga dhex dhisayaa habadanan waa laga hor istaagaya aniga waxaan ku weydiinaya adiga iishaa xiriirkan iiga dhexeeya ma goyn kartaane adiga mise ma iloobi kartaa adiga su-aashan dhowr jeer ayaa aniga nafsadeeda i weydiisay jawaabna waan ogahay arrintana go-aan waan ka gaari waayay aniga gurigan qofka i keenay waa gabadhaada ishaa sababta ay keentay ayaa meesha taala hadda ka hor gabadhayda ishaa weli isma diyaarin miya maxaa dhacay soo mogid maanta xuska hooyo inuu yahay abo xuska asheegooshidna maxaa waaye gabadhayda xuska waxaa laga wadaa qofka markuu dhinto dhimashadiisa waqtiga ay ku beegan tahay ayaa la xusaa hooyada aniga waa xasuustaa adima xasuustaa aab maxaa u xasuusin waa hooyii aababa aniga labadooda adiga ayaa ii nakeen gabadheeda kaale aabo awo isha soo kaale gabadheeda hay soconayno isku waa soconaynaa laakiin waxaa rabaa fiyoorash in hal xabo soo goosto horta soo gooso
war wax garad baa tahay nin fiicanaa tahay maxaa yeelay anuu ku yeer raba aad bay timid weliba waxaan aad kaaga abaalmarinaya hawshaad ii qaban rabtid muddo waad noolanaysa caqli baad sababta falkan u sameynaysaan waa maxay aniga idinka cadaawad maba naga dhexayse waa maxay waxaan samaynaysaa cadaawad hadda kadib naga dhexayn mayso adiga waxaan kaa rabaa wasiirka maaragta inaad soo dishid sidoo hadlaysaa nin loo xilsaaray wasiirka ammaankiisa inuu sugo siduu u dilaya marka ma dili kara aniga waaba sababtan kuula cashaqa taas ninka keliya oo agagaarkiisa si sahlan ku tegi karaba maaragtay sidoo hadlaysaa aniga miyaa dilayo adiga waad dilaysaa maxaa yeele anigu waan ka warqabaa gabadhaada ayshaa aad inaad u jeceshahay saas darteed laakiinse qof kale ma dirstaan hawshan aniga ma diga daysaan hawshan way igu adag tahay ma yeeli karo yulka disko ninkan saa xun ku yeelayo garabka wax fiican haddaadan sheegayn meeliya dhimo saas waa sharcigayga adigana dhegayso gabadhaada gacanteeda ay ku jirtaa waxaad qabtaa 8 saac oo aad wasiirkaas ku soo dilaysid haddaad hawshaada ku soo gudan weyso muddada 8 saac gudaheed waxaad ogaataa waxa aan samaynaya aniga markaas hadhow baan kuu sheegaya waa ku salaamay mudane wasiir subax wanaagsan subax wanaagsan munawar siin waa ku salaamay waana maqlay in gabadhi laga afduubtay haa mudane waa laga afduubtay gabadha munawar waxba ha walwelin rumaantii inkastoo arrintan aan ka xumahay haddana heeliya hooba anigaa ku siinaya ciidan iyo lacag intaba anaa ku siinaya may mudane dadkaas waxay codsadeen adiga inaan ku dilo yaa haa ma la huba haddii aan doonayo gabadheeda inay badbaado waa inaan adiga ku dilaa hawshaad waan kuu qabtay naageshwar gabadheeda soo daa naga siiya gabadha alla soo bixiya gabartiisa gabadha ayadoo nool inay gaarto ninkaas ma doonayo ka hor duciya mudane wasiir akhbaar xun ayaana soo gaartay waxaana la yidhi marshal gabadhiisu badbaadsan waaye taasna waa arrin aad aan ugu xunnahay marka maxaan samaynaa noo sheeg anigaba waan ogahay arrintan inay jirto aniga waan la socda maxaa yeele waxaa lagu xujeeyey wasiirka haddaa aad soo dishid gabadhaada nolol ayaa lagugu sii daynayaa weliba dil been ayuu ii geystay gabadhin uu heli waayo taasna aad iyo aadaan uga xunnahay waa ka xunahay naageeshii ciidankiisu markii aan dilay kadib waxaa noqday dilaa caadi ah oo weliba la karaysanayo loona karaysanayo inuu dad soo dilo laakiinse inta markii aan imid kadib nolosheedu isbedeshay waayo waxaan la kulmay ishaa oo gabadheedoo kale ah balse hadda aad ayaan u cabsoonayaa cabsidaasoo ah beri ka maalin ishaa iyo hooyo hadday ogaadaan wejigayga dhabtaa waxaa macquul ah niyaddoodu qarax weyn inuu gaaro marka taas intaysa dhicin ka hor go'aan waxaan ku gaaray isla maanta inaan meesha aan ka tago oo aan ku laabto bombay marka sidaas ayaan isku ognahay nabaday maanta waxay noo tahay maalin aad iyo aad u weyn agteena farxad baa ka jirta baayir sababtoo ah waxaan heshiis la galnay master batel oo ah tug weyn oo khatara isna hadda kadibna hubka anaga la gadayno wala runtii anaga hadda kor waxaan ganacsan jirnay daroogo maanta hub haddaan kusii darsanana magaaladoo dhan anaga gacanta ku dhigayno
abowe dhiil kalena waa ku hayaa maadaama waxaan dhan gacantaan ku dhigayno cawada xaflad waa inaan dhiganaa khamri waa inaan la cabaa naagana waa inaan wacnaa khamri iyo naag le maa ka sheekee laakiin waa la dhaqlaynaa waa in la keenaa naaga dhaxyar oo salsaloogan haye naaya waxaan kuu sheegaa maanta waxaa ku roon inaad runta iska sheegto yaad u shaqaysaa maarshalaa ii sheeg haddii kale waxaad ogaataa cijaha inaan kaa siibayo runta sheeg waryaa waxba indhaha ii gedin aniga yaad u shaqaysaa war meeqa jeer ayaan kuu sheegay anigii marshal waxba nagama dhexayn misna qaanaxa yaad beentaas u sheegaysaa waryaa marshal iyo adiga jecelaha idinka dhexeeya waad jeceshaa adiga ninkaas xageen ka helaynaa ii sheeg adigaan kuwala hadlaa haddaad runta sheegi waysidne xabsiga ma ka bixis haddaba waa kuu sheegay waa ku silcina haddii kale runta iska sheeg hadda hadalaa la jooga haddii kale sharcigaan kugu qaadaa waxaan ku dhiirib aniga waan ku dhahay waxaa samaysan karta adigana iga samayso waaya kunaal banaankaad marka waa fasaxan tahay ayadana fasax
weydiiyey wuxuu maanta oo lagu geysta miyaa jira adiga maya lama geysan guriga waxaad kala kulantay oo dhibaata ama qofku aflagaadaysay ama waxaad ka tabanaysa miyaa jira familka gudihiisa maya laakiinse qof walba qasab maha inuu nasiib u yeesho gurigiisa inuu farxad kula noolaado farxadna uu ka helo reerka annaga maxaan ku yaraysan ii sheeg hooyo agteeda waxaad ka tahay weli ayada dhashay oo kale sidaas ayay kuu dhaqaalaysaa oy kula dhaqantaa anigana agteeda walaalkay iga weyn xushmadiisa ayaan ku siinaa iyo jacaylkiisa aishaana waad aragtay waxay aaminsan tahayba adiga inaad aabbaheed tahay oo aabbaheed uusan waxba gaarin haa waan ogahay ishaa inay dhibaataysan tahay laakiinse dhibkeeda ama jiradeeda maaha in lagu daaweeyo daawo hadhow dhibka hadda haysta mid ka daran u keenaya ishaana waxay iga rabtaa jeceyl aabbo anna ma siin kara jeceyl aabbo oo uma awoodo marka sidaa darteed iga raalli ahaado waxaan aad ugu xumahay arrintiina wax kama qabo fiiri muhiimadda meesha taallaya waxay tahay gabar yar ayaa arrintan qusaysaa arrintan waa mid gabadhaas nolosheeda iyo geerideeda sii qusaysa marka waxaan ku dhihi lahaa wax kale hanoo qaban balse xiriirka labadiina idinka dhex dhashay nagu caawi inaan ka dhigno mid run ah oo weligii sii jira aniga ma doonaya wax kale inaan kugu qasbo aniga waan dareemi karaa dhibka idin haysta balse waxaan diidanaya dhibkan aad hadda ku jirtaa mid ka weyn inuu hadhow yimaado maxaa yeelay iisha hadday ogaato wejigayga dhabta ah in aan dilaa ahay nolosheedu isbedelaysaa waxay halis ku noqonaysaa dhimasho aniga sideeda waxaan diidanaya nolosheeda hore iishaa farxaddeeda inay baabi'iso ee eber ka dhigto anigu waxaan ahaan jiray nin gaangistar ah waddada aan ku socdana waa wadda halis ah afartiisa geesna qori ayaa layga daba taagan yahay marka ma garanayo gacanta booliska xilligaan ku dhici lahaa ama goorta booliska xabadoodu aniga aan sababsan lahaa iishaa markayna arkay waxay la noqotay nolosheeda dib inay ugu soo laabatay gabadheeda iishaa u dhimatay kadib waxaan soo xasuustay bistooladan mar qofkii gacanta ku dhiga inuusan iska fogeyn karin ee la soconayso noloshiisa inta ka dhiman halo monica ayaa kula hadlayso haa monica soo daaban maxaa dhacay waa murugsantee haa aniga waa murugsanahay waxaan rabaa arrin inaan kuu sheego laakiin siisaan kuuguma sheegi karo berito ayaan xaggaaga soo aadayaa markaas ayaan kuu sheegayaa wax walbo sida ay yihiin iga raalabtalay waxaana qabanay ninkii u ahaa sheef bowaan darawalkiisa markii la dilayana isagaa goobjoog ahaa dabeetana isagaa markhaati ka noqonaya maxkamadda bravo waad samayseen ninkaas qabashadiisa iyo caddayntiisa waxay noo faa'iideynaysaa inaan gacanta ku dhigno sukraash ninkii ahaa rafan haye waxba ha ka cabsan adiga meel fiican ayaad joogtaa waan ogaa nimankaas waxay isku dayan inay ku dilaan laakiin cid wax kaa qaadi karta male intaad gacanteena ku jirta adiga waxba ha ka cabsan tali waa ku baryaa hawshaan gacanta hay gelin aniga nin maskiin ah faqiir ah maxkamadii waxaasne waxba ma garanay aniga dhegayso sharciga haddii aad garab siisid waad badbaadaysaa laakiin haddaad sharci garab siin weydo oo ninkii dilay mudanahaaga aad noo sheegi weydo adigu baa ku dhib qaba taasina waxay noo keenaysaa khasaare marka midaan samayn karnaa haddii aad diyaar u tahay booliiska inaad garab siisid oo maqaati furtid waxaan ku ballan qaadaynaa nabadgelyo buuxda annaga inaan adiga ku siino inta tabarteena ah xilli walba waaya dhibkaygaba ahaatee raalliyaan ka ahay ka qor ninkaan hadalka oo dhan igu hala taliy markii waqti ya sugdeef adiga inaan ku xirayaan halkan oo imid aniga waa ku xidhaya buu kuleey adi xidhiisa maxaad igu xidhaysaa bal ii sheeg asbaabahaad igu xidhaysid iyo dembigaan galay maxay hoteelka weyn iyo kasiinada isku furan ninka iskale bavan ayaad adiga soo dishay saas darteed haddaba wax caddeena miyaad haysaa mise caddeyn la-aan baad doonaysaa inaad wax ku xidho caddayn keliya maaha weliba markhaati
xilligaa goobjoog ahaa ayaan gacanta ku haynaa isbatoore waxaan kuu sheegayaa mar walba waddadeeda ay soo hor istaagtaa waxaan u malaynayaa inaad naftaada nacday haddii aad naftaada nacdana nafteeda agteeda qiimo kama laha maalintan waajibaadkayga ku dhaartay inaan bariis noqdo ayaan nafta ka sabray hagaag hoo isdhaqaajin aqli dadii keentadna madaxan xunkaan kaa tooganaya oreha edab lahow amarkaygana oofi soo raac aniga adigoo nabad qaba soo socod yaa qadadkay kaa saarantahay haysad qaajin ya anama bisool ii soo baxay ama xabadii u dhufay aabbahay qabaadka adinku dili waay majisku dili waay booliiska ayaa ku raadsanayo halkanna way kuugu imaan karaan marshal waan ku salaamay waan ku salaamay safarka dib maad kala kulantay maya aniga magaalada hore ayaanu aqaanay laakiin adiga sidee tahayna ii sheeg aniga mashaakil ayaan dhexda ka galay weliba mashaakil aad u weyn mana aqaan sidaan ugu baxsan lahaa mashaakilkan aniga ii sheeg waxaa laga yaabaa inaan garab kugu siiyo حبطوا يا جماعة الصرون على الصرون حبطوا يا جماعة الصرون بابوك إلى سكر سكر ميي وعلكاس مكيرو يعني أو إيجارك oo igaalkana gidile kaas inaad soo dili la jirtaa maxaad samaynay ma gurigiisaad ku dilay ma saldhigga dhexdiisa ii sheeg bal maxaad ku samaynay inteed ku dilay gurigiisna ku dilay maxaa waye war qabri haddii la geliya taa qabriga wadooba kale waa dilaa faaq ma rabo qaylada tartiib deganaanna ila hadal ninkaas dhintay walaalkayga yar ayuu ahaa aniga ayuu la dhashay waa ka xumaa aniga dhimashadiisa sayd aan uga xumaa weliba
qalbigayga dhaawici gaaray mid bogsanaya ma ah indhahayga feeri ilin kama socoto burugana kama muuqato war annaga sidaynaba dhibkina gaaraha waan qarsanaa bas adiga magalo markaan ka dareeya taad warka ma bakasoy waa ogtaa waryahow madax khalacna qabo waryahow ogtaa maraati igu kacdaani codkaada inaan maqaynaho hal codle aan ka saayo halkaas codne xabadne wax kaloo aan ka saay ma leh dhabaaqadii lay dejiya inaan wax dili mahee wax aan yareesahay malaal iskuga go'o familkaas noo soo baabi'i lahay adaa celi samee alwaana gaali waas kuwaas maba dhaafi lahayn aniga yason horta wax walbaba in deganaan lagu qabto ayaa wanaagsan anigaba ma doonayo ninkaas iyo faamilkiisaba inay sii noolaadaan balse waqtigii la dili lahaa iyo meeshii lagu dili lahaaba anigaa kuu sheegaya adiga isdeji soo sheeg laakiin markaa yeelooyi masmadow haddii uu ku qaniino waxaa laga yaabaa inaad ka badbaadid balse aniga sunteyda cid ka badbaada weli lama sheegin haddana inay jiri doonto ma malaynayo marsha haddii arrinta sidaas tahay aniga waxay la haboon halkaa inaa iska joogtid aniga cabsi ayaa igu jirto cabsidaasoo ah aniga weligeyga wax ma aan helin inay iga luma mooye marka reerkan ayaan diidayaa inaan wax ka lumayo oo aan ka baabi'iyo marshaaseed u hadlaysa hore adiga adduunya waad u soo martay hadda laakiinse waxaa tahay cunug yar nolosheeda iyada ayaa ku fiirsanaysa iska beer daraynin waan ku baryaa meeshan ayaan kuugu ogahay aniga balan iga qaad marshaa buzuri aniga intaan noolahay wax kaa halaabaya ma laha doorashadaadana cid hor istaagaysa ma laha wasiir dawle inaad noqonaysid qalbiga gasho weliba lacag anaa kugu shubay horta aniga wasiir dawle inaad naqaay lama ma isweydiiyeyso laakiin haddii naqdi adna waxaa ogaanaysaa meeshaan inay kuuga jirta kharash badan abootiya naqiya abooti taas waxaaba iga daranba nin ayaa doonaya hawsheeda inuu hor istaago marka ninkaas in la qabta ayaa loo baahan yahay ninkaas haddaan la qabanna wax suurtagelaya u malay maayo inay jiri doonaan ninkaas waa in la qabta waa in sheegaysaa le ninka waana yadnawa anaa ku ballan qaadaan taas waa askari xun askariga haddii xun yahay anaa ka xun marshaala loo diraa aniga howsheeda marshaal laymu diraa marshaal maxii loo diro jooggaska marjiha joog adoo lagu qabta camalna kasoo qabaan marshaalka aan ujeedid adoo hooyahan usaa laga suubi meeshiistaga waa tirtiraa abo gabadheed inakeen abo iga raalahow marshal waxaa ku doonaya busuri wuxuuna doonaya inuu kula kulmo galabta hal buuna doonaya inuu kuu diro marshaalo waxaan ku wacay arrin muhiim ahaan jiraa oo aniga ninka soo yar murug camala igu haysaa haddii busuri ahay aniga ninkii waxaa ahay tuugada ninka ugu weyn horta aniga ra-iisul wasaare sin ku naqda lacag badana si geliyey muhiimadka hawshan kuu qabna maxay tahay muhiimadda waxa waaye ninkaas saaxiibkeega walaalkiisa ah waxaa dili nin askari ma dili karo si isku dili karaa marka waxaan kaa rabaa ninka askariga ee ma arkino inaad macnaa aad nabtu ruqsiisid masawirkiisana waa kana ma jecla wasiir ninkaa ma dili karo maxaad sheegaysaa waryaa ma dili kari maxaa waaye cabsi daraaddeed baad ninkaasu dili weys anna kuugu faanay maya sidaas maaha ninkan waa walaalkee iga yar walaalka ami walaalka shamee walaal qabta iyo waalid waryaa hoy arta aniga kaligaa lama ku marti be hamartaanay ka tahay intaas makaan yeelna yani mana dhaafay aniga bulshadii ima dhaafay alxaasil hadal badan hama buuxsho wiilkan waxaan ka dhigtay walaalkee iga yar walaalka kaa yar cadow ku noqdana waa aniga cadowgeyga beenbood laga bakayn leh adna waxaa ogaahaysaa daamandar qof dadoo ma aha walaalkey inaad dhashti waaye walaalkeyga waaye
walaalkiisna walaalkay waaye inspektoorahaasna walaalkaygaas li anigana badan waay ma dhaafay مسكين على سكينة اللي يروح مقتيد ننكس هدي أديك أديلي بيسي ولا أديلها منولا هاي لما قلبه وقاو maya ma dili kartaan ninkaas wax walba oo aad sheegtaan cidi dili lahayd marka hore waa inay aniga isoo martaa anigana cid i haweysanaysa ama garabkayga garab mari karta ma jirto oo ninkaas u gudbaysa aniga ayaa dilaya cidi damacda askarigaas inay disho ما قبل ما كو هاي ساوري احترام عن كذا اللي يري أسلوب كذا سمي أمريكيس عندكي أنت كديرا وريا واحد أسوبيوس دان أنا كصبري haddii aad soo bartay ogow anna inaan kaa badiyey magaaladana waxaa laga dambeeya oo sanaan loo saaraa qofka dilkiisu badan yahay dadkuu dilayna marka lays dul saaro daar gaaraya marka idinka cagahiina ka hoos socdo busuri mar dambe ha isku dayin aabbahii inaa matasho qof keliyo adiga aabbaha matali kara waa aniga ilayn marshal laba maaha waa halkaasna waa aniga haddii aad ka joogayso waddada aad ku socoto waxaad ogaanaysaa aniga dad badan hore inaan usoo dilay adiga dilkaagana waxba inaan u arkayna وكالي توكي حبسي كبحصدي مارشال بوها ها أسيقا يو هاي لكن واحد كلا قرن لا يعني دينيشي مارشال واحد كده حي صاحبا ينو ملينا يلا ودا سنين wax walba ka dhaxay taliye waxaan diidanahay aniga nin dambile in guriga lagu qarsado qofka qariin waa inuu dambiga ma waan ogahay taas laakiin waxa ka daran ninka dambilaha qarsada ee askariga horay ayaa waxaa loo yidhi caqli iyo calool meel islama galaan adiga markaad howl aad qabanaysid maskax ma adeegsatid war heedhe adiga markaad gacanta isaga wasaqaynaysid nimaad 10 kun sii kartaa ii soo juci ninkaasaad dhihi kartaa maxaad gacanta isaga wasaqaynay markaad ii sheegtid maskax ma isticmaashid 10 kun markaan dhiibay ani man juciye gacma maan laahe anaa baa jucin kare adiga iyo fayoobi waa kala fogaateen waa waalatay alxaasil mid ma kuu sheegaya ninka maarshaalaha waa badbaaday meeshaasna boolis ayaa baaritaan ku haya marka adiga waxaan kugula talin lahaa in muddo magaalada ka fogow maxaa ugu tagaan booliiska cadayni markhaatiyada baan cadayni markhaatina ma bariibayo war alxaasil i dhegayso cadayni markhaati ma weynaayaan dadkaasna caqliga aan ku dilaa anaa heestee adiga waa ku baryaa hay carqaladaynin fadlan magaaladan iga naga tag kii wax juciile aniga مارشال sidii hore mahimka uu tagayo uu isbedel magaras waa runta anigaba weligay waxaan ku duceysan jiray marshal inuu dago haddana noloshiisa way isbedeshay farxad ayaa ka muuqato ha aad u faraxsan yahay waan ku salaam marshal hooy maxaa kuugu dhacay indhahaaga maanta galgacel ayaa ka muuqdo anigana weligay indhahaaga waxaan oo kale kuma arkin haa waa sax maxaa yeelay aniga markayga hore nolosheedu mowqaf ma leh laakiinse hadda nolosheedu way isbedeshay isbedelkaasna adiga ayaa sabab u ah marka sidaa darteed go-aan waxaan gaarin nolosha inaan kula qabsado runtaa miya marsha तेरा नूर हाँ
तेरे दिल को दिल में छुपा के मैं हरदम मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम अपनाई लेने लगी चाहत मेरी सपने सजाने लगी ये जिंदगी अपनाई लेने लगी चाहत मेरी सपने सजाने लगी ये जिंदगी मेरे हम सफर मेरे साथ चल मेरे साथ चल लो मेरे साथ चल तुम ही अपना कहकर बुलाते हो जाओ तेरा नूर पाते हो जानम तेरा नूर आँखों में पाते हो जानम तेरा नूर आँखों में पाते हो जानम तेरे दिल को दिल में छुपा के मैं हरदम मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम मोहब्बत की बातें सुनाता हूँ जानम Monica maxaa kugu dhacay ya waxbane haa soo baxe hay waa baxe marshal aniga waan baxooyaa waxaan rabaa waraaq iyo telefoon ba inaad isoo dirto mar walbo telefoon maxaa dhacay haddii aan niyeysto inaan ku imaado anaaba ku imaanayo kadibna waad sheekaysanaynaa waa runtaa waa iskarow Zubair, filimkan waxaa dib habeen loogu sameeyey studio Indie Films. hay tali adiga ii yeer haa aniga ayaa ku yeedhay adiga iyo marshal xiriirka idinka dhexeeya waa xiriir aan garanay laakiin siniin dambiilahayd guriga ku qarstay taasaa dambi ah waxaana kugu waajibaa in dharka lagaa dhigo oo weliba civilian lagaa dhigo marshal guriga ayaa lagugu soo weeraray haddana ima aadan sheegin maxay ku dhacday mase xiriirka naga dhexeeya wuxuu yahay xiriir oo shisheeye ah ani adiga haddii aan walaal ahaan lahayn wax igama aadan qarsan lahayn laakiin hadda waad iga qarsatay taasna waxay caddaysay inaan walaalka ahayn maya qalad ayaad iga fahantay walaalaha dhiigga iyo dhalaanka ka dhexeeya ayaad iga qiimo badan tahay laakiinse dadkaas waa cadowgayga aniga ayaa doonaya inaan uga harsado walaal aniga waan garanayaa dad ku soo weeraray mana laga yaabo inay iga badbaadaan gacanteedaan uga caanamaala eeyahaas maya dadkaas aniga ayay qalad iga galeen sidaan uga harsan laana aniga ayaa garanaya walaal adiga ma doonaya mar labaad inaad dhiig daadis iyo shantii daamu darne sharciga ayaan la tiigsanayaa wax walbaba sharciga ayaan ugu dhammaynayaa ayaga maya dadkaas qofka ay qalad ka galeen waa aniga sharciga qaladka ma gelin dadkaasna aniga ayaa uga harsanaya aniga ayaa baabi'inayo adiga faraha kala bax waa codsi yashwant rane busuri iyo batel dadkaas waa cadowgayga aniga ayaa uga harsanayo aniga ayaa garanayo sidaan u dili lahaa una ciqaabi lahaa waayo mararka qaar aniga waan isbedelaa wuxuush ayaa noqdaa oo dhiigi cabaa waana baabiinaya dadkaas halo waryaa shuntaa kula hadlaya
waa maxay naagtan ku dira aawey ilaa haddii meesa soo gaarin maxaa ku dhacayna ii sheeg adan ku hadlaya yaa waryaa naag kuma soo gaarin balse aniga ayaa ku soo gaaray adigaaba iskeenayba laakiin maanta ma badbaadaysa ogow aniga caada ayaan leeyahay qofka intaanan dilin ka hor waxaan weydiiyaa ama fursad u siiyaa sahal inuu ku dhimanayo iyo silac inuu ku dhimanayo laakiinse adiga fursaddaas inaan ku sii maaha maxaa yeelay aniga ayaa doonayaba silac inaad ku dhimatid oo nafta si raaxa leh ayna kaaga bixin aryaamus yashwanti dhimashadiisa aniga mid aan ka sabri kara maaha midaan yeelaya maaha waxaan ka rabaa 24 saac gudahood maarshaal ninka la yidhaahdo inaad gacanteeda soo gelisaan nolol iyo geeribe haddaad soo geli weysaan haddaba ha igu soo noqonina haddii kale anaa ku guulaysanaya dhimashadiinna adinka ha degdegina dhegayso qorshe ayaan degay maarshaalna isagaa taayiradiisa inoogu imanaya weliba wuxuu inoogu imanayaa aqalkayga ama firladayda ama hadba noocaad u taqaanid haa iswareeninina war ninii badbaadi kara mal meeshaan saalax dhan hataa imaana disro hawartaanin qawaya ku dhali beenbooda dhaga bakayle adiga khataraantahay marshana luu dhahaa beersaa qaadataa dad soo dila luu dhahaa laakiin waxaa ogaahaysaa seefta todoba bac inus haddii tahay xataa oy dheer tahay ninka wata qoontiisa seefta hawarteeday ka tahay maku goy karo seef nin gacantiisa ku jirto horta ma iskaga goy karo hawarteeda ka tahay laakiin waxaa ogaataa ninka seefta ku dhiibi inaan aniga ahay baabahaagan ahay busuriya lidhahaa balan waay hal fursadaan ku siiyaa laakiin hadda waa ku dili karaa ani si kastaan ku heli karaa waa ku dooxi karaa intaan ku dhigi karaa laakiin afartaas qaf haddii disid afartaas qaf haddii toosis ani waa iga fakihay haddii toosinin laakiin balan waaye makulaan tadoo beri baaneed camalan hilbahan cunaa makaasti warkay makugu aduuri busuri nolosheeda intaadan ka fikirin marka hore waxaad ka fikirtaa adiga natiijada kugu dambaynaysa maxaa yeelay aniga maanta dad inaan dilo uma socdo ee waxaan u socdaa dad inaan naftooda badbaadiyo sida aan ku badbaadin lahaana waan badbaadinaa nafteedaba aanu hore kii badbaadiya ayaan nahay aniga wabiyaashuuni waraabayaa lidhi wala khabari khatarina waa lidhi nin arbac dhimar waa lidhi salaadaas botee caawdaa mandal سام دلنا كان إنشاء به ما عنا مسوى لها نوعين دلنا نوعين مسبي بنصوري تاس أنا هي جلت السنين أما عن أما عب أديك كتشتا تاس قان كذا أديك أيوة قان هذا كتشرا مسكين على سكين واحد لنا بكينه طب سكنت هاي شتاور يا مشان وين مكون يالو دم مسكن هدي عدد كان قبض بالي كرت قبض بالي هدي كله هودود اي هودود والله ما
filimkani waxaa dib habeen loogu sameeyey studio Indie Films Muqdisho. بعد شوفيو افكار شيطان فونا هي ليه افكار شيطان فونا اني انت تسكا ساينا عيشو من حناي رئيس الوزراء اللي دغري واسه تعبنا يدي من دورشنا هادين دورشده هل بلان وين انا كو انجا ولا انا قهنا لحنا سربانا كو كدا لحنا جاكو واكو تونا halkan jaaki halkan saraan waa ku uri midun ami taqaanido bashuriyan ay awaan oo leeyahay dadkan ahli marshal dhaqdhaqaaqna dhaqdhaqaaqna madaxan ka jibina ogow maya ma dhaqdhaqaaqayo markayga hore nolosha rajo kama lahayn balse hadda rajo ayaan ka leeyahay mana doonayo si xun inaan ku dhinto waayo gabadheeda iga luntay ayaan helay anigaaba rabay sharciga inaan isku soo dhiibo balse idinka waxaa idiin sheegayaa isbatoorahan wuxuu qalad leeyahay ma leh gurigiisana sababta uu keenay waxay ahayd gabadhu adeerku yahay si nafteeda iyo nolosheeda ay u badbaado oo sidii hore ay ugu soo noqoto marka idinka waxaa idinka codsanayaa shaqadiisa in loo ogolaado waayahay waanu kaa guddoonay taa waana ku soo celinay isagoo bilaa dembiya shaqadiisii